haddii aad haysato ama uu moobilkaaga ku jiro ogow xog walba oo aad sameynayso ama wax walba aad sameynayso waa lala socdaa. haddii aad tahay gabar ama wiil kaasoo iskaga duba moobilkiisa barnaamij ku jira oo aan kusoo sheegi doono runtii cawradaada iyo wejigaaga waxyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa. runtii waa xanuun inaad ogeyn wax badan oo ku jira moobilkaaga kuwaas oo kuu sahli kara dhibaato. ogow mararka qaar wuxuu sahlayaa halka aad joogto, sidoo kalena ogow mararka qaar waxa uu sahlayaa in si toosa adiga oo dhan lagu arko. waa haddii aad ku jirto xaaladaha kala duwan. magacaygu waa Ismaaciil, waxaan ku magac dheerahay Ismaaciilis Program. waxaan rabaa inaan si fudud kuu fahansiiyo aaladda loo yaqaano TikTok oo runtii wadamo aad u badan ay iska xireen, ay ka mid yihiin waddanka Hindiga, Mareykanka asna goordhow ayaa laga xiri doonaa, halka Malaysia iyadana laga mamnuucay. haddaba waxaan rabaa si fudud inaan kuu fahansiiyo adeega TikTok maxay tahay sababta ka dambeysa in wadamo badan ay iska xayiraan, maxay tahay sirta ku dugan oo dad badan oo Soomaaliyeed aysan ogeyn. runtii aad baan uga naxaa markaan arko gabdho badan oo Soomaaliyeed oo isticmaala TikTok, laakiin fiidiyogani waan filayaa wax badan inuu kaa bedeli doono. ila sii soco ayaan ku leeyahay si warbixin kooban aan kaa siiyo. isku wanaagsan asxaabtayda qaaliga, adiga waad isticmaashaa TikTok ama waad daawataa sax? laakiin muhiimtaas ma aha. waxay muhiimadda ku jirtaa inaad ogaato waxyaabaha ay wadamo badan runtii iskaga xayireen adeega TikTok ama barnaamijka TikTok sida u taqaanaba. hagaag horta waxaa ogaataa barnaamijka TikTok waxaa laga leeyahay dalka China, waxaana iskale shirkad bixisa adeegyada tiknoolajiyadda. hagaag muhiim ma aan taas inaan ogaano iyo nidaamka uu ku soo baxay iyo taariikhan, laakiin waxaan rabaa inaan si fudud kuu fahansiiyo waxyaabihii aan kuu soo sheegay inay jiraan iyo in kale. hagaag waa ila socotaa ayaan filayaa, dhagahaga isii. markii aad soo degsato barnaamijka TikTok kuna soo shubato moobilkaaga, markii ugu horeysa ee aad ku dhufanayso waxaa kaa hor imaanaya digniino badan oo aad u badan. runtii digniinahaasi tirada badan anaga ma aan akhrino, sababtoo ah badankeena Soomaalideena waxa u baahanaa dad aan wax akhrin. digniinahaasi marka aad akhriso waxaad heli doontaa runtii waxyaabihii tirada badnaa aan kuu soo sheegay. markaa barnaamijka TikTok aad soo geliso moobilkaaga, kadibna aad dhehaysa allow muddo 3 ka badan. allowga koobaad wuxuu kuu sheegayaa in marka hore aad u ogolaaday barnaamijka TikTok inuu la falgalo moobilkaaga, sidoo kalena uu ogaado xogta guud ee ku jirta moobilkaaga. marka labaad ee allow aad dhahdo adeega TikTok ama barnaamijka TikTok waxa uu ogolaatay in wax uu rabo uu ka qabsan karo moobilkaaga. fiidiyoyaasha ku jira ayuu la bixi karaa, wejigaaga ama waxa aad duubta ayuu la bixi karaa. xitaa mararka qaar waxay awood u leedahay shirkadda TikTok haddii aad moobilkaaga kula jirto goobaha sida musqusha oo kale ama adoo qaawan aad isticmaalayso, in si toosa uu fiidiyo kaaga duubto, kadibna fiidiyogaas uu u isticmaalo waxyaabo kala duwan. sababtoo ah waxaa jiro shirkado, runtii shirkadahaasi waxaa laga soo qaataa wejiyada dadka si loogu isticmaalo waxyaabo kale. wejiyada badan ee lasoo qaatana waxaa ka mid ah ama ugu badan dadka Afrikaanta ah oo aan ugu horeyno anaga oo Soomaali ah. runtii waa wax laga xumaada in adiga aad cadowgaaga keensato kadibna aad isu ogolaato in wax walba kaa qabsado. waddanka Hindiya oo iska xayiray, sababta ugu xayiray ugu weyn waxay ka mid ah in xogta waddankaas oo dhan ay heli karaan shirkadda TikTok si fudud, iyadoo xitaa ay ku heli karaan qof kasta. sidoo kale TikTok waxay awood u leedahay in adiga daawanayo fiidiyogan haddii aad isticmaasho in wax walba oo moobilkaaga ku jira inay la socoto, sidoo kale in la socoto halka aad joogto iyo wax aad qabanayso. xitaa mararka qaar waxay awood u leedahay moobilkaaga oo meel iska yaala inay fiidiyo qarsooni ah kaa duubato adigoo qaawan ama adigoo asturan. waxaanu runtii gabdho badan oo Soomaaliyeed in wejiyadooda wax badan loo adeegsado. haddaba waan filayaa in adiga daawanayo fiidiyoon wax badan aad ka fahantay adeega TikTok. wadamo badan ayaa iska xiray. hadda shirkaddu waxa ay wataa dadaalo badan oo runtii ay ku dirtirayso waxyaabihii lagu soo eedeeyay, laakiin waa been, marnaba isma bedelayaan oo sirta sidii ayay ahaa doontaa. wadamo badan ayaa iska xayiray adeega TikTok. haddaba adiga oo Soomaali ah
maxaa kuu diiday inaad ogaato sirta ku aasan adeega TikTok? haddii aad isticmaasho barnaamijka TikTok runtii waxaan ku leeyahay iska dhaaf wixii aan kuu soo sheegay in ka badan ayaa u qarsan, awoodo badan ayaa u qarsan adeega TikTok. runtii haddii aad Soomaali tahay rabtana inaad sharaftaada dhowrto waxaan ku leeyahay iska daa adeega TikTok. sidoo kalena haddii aad tahay gabar ogow mustaqbalkaaga way u dhamaatay, sababtoo ah gabdho badan ayaa niyaddooda waxay ku jirtaa inay jirkooda banaanka ay keenaan raggana ay tusaan inay tahay wax fiican. ogowna rag oo dhani waxay jecel yihiin diamondkana lama helo meelahana isma keeno. haddaba gabaray fakar oo adiga go-aan qaado oo miisaan inaad banaanka iskeento oo corada aad banaanka keento. ma diamond baa ku noqonaysaa mise waxaad ku noqonaysaa yaanyuur oo runtii ish laska dhaho. hagaag intaas waa dhiirigelin kooban. haddaba ma taqaanaa saaxiib isticmaala adeega TikTok? haddii jawaabtaadu haa tahay halka hoose faalada ugu yeer. haddii aad taqaanana saaxiib mobilkiis ugu jira adeega TikTok ama barnaamijka TikTok runtii la wadaag fiidiyogan, sababtoo ah aniga waan kula soo wadaagay. fadlan la wadaag fiidiyogan asxaabtaada si uga faa'iidaystaan, sababtoo ah waa cilad jirta taas oo runtii xal u ah fiidiyogan. magacaygu waa Ismaaciil Program.